jacaylkii nadka halka bilow keliya socday. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa gabar ka mid ah isticmaalayaasha TikTok-ga kala xiriirtay wiil ay in badan oo la dhacday dabeecaddiisa iyo shakhsiyadiisa. Wiilka xoogaa waa mid aan dhaqaale haysan, xoogaa iska tabaryar laakiin qalbi wanaagsan lahaa. Waan isla weyneyn, iyaduna waxay ahayd gabar dhaqaale haysata, dabeecad ahaana aad u wanaagsan. 3 maalin kadib ayuu arkay fariimaheedii, markiiba waa uu soo jawaabay isagoo u muujiyay soo dhoweyn aad u wanaagsan. Wuxuuna u haystay inay tahay gabar u baahan in la caawiyo, laakiin ma ku fikirin arrinku in sidaa ka duwan yahay. Markiiba waxay u sheegtay in iyadu u baahan tahay isaga oo ay ka heshay. Markiiba waa uu soo dhoweeyey oo halkaas ay ka bilaabatay wada sheekaysigooda. Waxay ku heshiiyeen wada sheekaysigooda inay u beddelaan dhanka WhatsApp-ka. Xilli habeena ay isa soo koolgareeyeen. Habeenkii ugu horreeyay si fiican ay isku barteen, iyagoo u hadlayeen sidii dad weligood isla joogay. Waxayna wada hadlayeen muddo 2 saacadood iyo in ka badan, oo marba qoraal marna kool ah. Markii ay habeenka kala seexdeen maalintii xigtay, isla iyadii ayaa soo xiriirisay oo wacday, waqtina way wada qaadanayeen. Iyadu waxa ay wiilku muujisay qalbi furnaan iyo dabeecad wanaagsan. Waxay ka codsatay sawirkiisa inuu soo diro, waa uu ka diiday ilaa muddo. Markii ay iyadii u soo dirtay, aad ayuu ula dhacay gabadhii. Markiiba wuxuu bilaabay inuu hadalkii u beddelo mid ku saleysan dareen kalgacal. Waxay ahaayeen 2 qof aan kala dhicin, ilaa markii uu arkay iyada sawiradeedii oo u go'aansaday inuu diro wejigiisa. Way dhacday, wuu diray dhowr maalmood kadib. Wuu ku kalsoonaaday, waxayna ugu jawaabtay waan ka helay. Markii hore waxaan islahaa waa wiil aan qurux lahayn, waayo waxaan aaminsanaa qofka qurxoon isma qariyo. Laakiin haddaan arkin qof qurxoon xitaa inuu isqariyo. Siday arrinku ahaatayba, markii dambe waxaa la isku fahmay in xiriirkaasi loo beddelo jacayl. Waa uu rabay isagu arrinkaas, markiiba kama uusan fikirin. Si degdeg ah ayuuna u soo dhoweeyey gabadhii. Wax walba si wanaagsan ayay u socdeen ilaa ay kulmeen oo ay noqdeen lamaane si dhaba isku arkay. Markii uu muuqaalkeedii arkay, aad ayuu sii jeclaaday, isagoo u qaaday jacayl dhaba. Wax walibaana iyada ayaa ugu muhiimsaneyd. Sidoo kale iyadiina waxay u sheegtay inay ka heshay. Markii hore waxay isku fahmeen inuu baro reerkiisa uuna tuso noloshiisa. Way dhacday, waxay aragtay inuu ahaa wiil iska tabaryar oo aanan haysan dhaqaale ku filan. Sidoo kalena waxay aragtay inuu iska normal yahay, sida caadiga oo u nool yahay isaga. Taasi waxay u muuqatay inay ku ogolaatay. Kadib markii uu arkay, wayna ku ogolaatay noloshaas. Muddo usbuuc iyo badh ayayna sidaa wada socdeen. Kadib aragtida asbuucii ugu dambeeyay ay bilowday inay u gambiso. Habeen iyo maalin wuu ka fikirayay, xitaa wuu la ilmeynayay oo habeenno badan hurdo la'aan ku dhacday, ilaa ugu dambeyntiina ay soo wacday maalin una sheegtay wax walba inay halkaasi ku eg yihiin, ayna diyaar u ahayn inay xiriir la sii yeelato. Waxay u sheegtay inuusan u qalmin iyada, waxauna halkaasi ka bartay ay tahay weliga qof ha ku kalsoonaan. Sawilmadii wuu ceshan waayey maadaama uu aad u jeclaaday. Markaasuu bilaabay inuu ku dhaho wax waliba way qoran yihiin, intaan inan xiriir kula yeeshana way qornayd. Wax badan ayayna ii tahay, cashiro badanna waan bartay. Kamana xumi inaad iga tagaysid oo aad iclaynaysid, laakiin waxaan ka xumahay rajadii aan isgeliyey, sida weyn aan kugu kalsoonaaday iyo rajada weyne aniga aan qaaday. Waxyaabo badan oo aan ku dhahay ayaa jira, dhammaantood waxaan rabi lahaa inaad iga raali noqoto. Kadib ayuu ku dhahay, hore waan ogaa aniga inaanan nolosheeda ku qanacayn, haddana waan sii baxay. Sidaas ayuu ku soo dhammaaday xiriirkii quruxda badanaa oo sida wanaagsan u bilowday, socdayna halka bil. Mana jirin sabab cad oo ay sheegtay in xiriirkaasi u socon karin, balse waxay ahayd inaysan rabin qof faqiir ah. Kadib maxaa dhacay? Baartu ayaan idinkaga soo samayn doonaa insha Allah. Weliga qofnahaas kala weynaysiin. Allah subxaanahu wa tacaala waa loo siman yahay. Wax badan hayso ama wax yar hayso, qalbiga aad dhaawacdayna maalin sidaasoo kale qof ayaa kugu sameynayo.